wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warbixin kooban oo aan idinkaga hayno wararkii u dambeeyay ee kiiska baddeena. Sidaad la socotaan waxaa dalka Holland oo ay ku taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ka bilaabmay dacwadda baddeena oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. Kenya oo hunguriyeysay badda Soomaaliya. Mas'uuliyiin ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed horkacaya ayaa halkaasi ku sugan. haddaba si aan wax uga ogaano waxaa hadda khadka si toos ah ugu jira Abuukar Cawaale oo ah saxafi iyo campaigner u dhaqdhaqaaqa wacyigelinta bulshada. ugu horeyntii Abuukar Cawaale soo dhawow. waad mahadsantahay Fatima aad baan idin salaamayaa adiga iyo dhammaan teamkaaga. waa tahay Abuukar, horey shakhsiyan waxaad ula kulantay qareenka Soomaaliya u dooda ee kiiskeena gacanta ku haya warbixin kooban naga sii fahanka uu kiiska baddeena ka haysto iyo heerka rajadu la eg tahay. waa run waxaan ka mid ahaa dadkii ka qayb galay markii ugu dambeysay maxkamadda ICJ la isugu tago. waxaan ka mid ahaa runtii wariyayaashii arrintaas wax ka soo qoray wax ka taminayay dhinacna campaign baan ka waday. waxaan fursad u helay inaan la kulmo mid ka mid ah ama hogaaminayaba dacwadda badda Soomaaliya. waxaanan weydiiyey sidee baad u aragtaa experience-gaaga iyo muddo dheer lawyer ahayd khibradaada adoo kaashanaya guushu dhinaca ay raaci doonto. wuxuu igu yiri kiiskuu socdaa weli ma oran karo ciddaasay raacaysaa laakiin waxa kaliya aan kuu sheegi karo waxa weeye 40 sano ayaan kasoo shaqaynayay arrimahan noocan ah. 40 sano weli kiis ma lumin. kiiskana waa kiiskii ugu dambeeyay inta aanan howlgab noqon ama retirement waxay u yaqaanaan. qorshahayguna ma aha inaan taariikhdeedii shaqo kusoo gabagabeeyo anigoo kiiskii ugu dambeeyay luusgareeyay. marka waxaa halkaas runtii iiga muuqatay intaas un baan ka oran karaa uu igu yiri ma sidaasaa ugu kalsoon tahay yes buu igu yiri. halkaa waxaa iiga muuqatay marka runtii lawyerka laftigiisu inuu kalsooni weyn ku qabay. insha allah waana xaq Soomaaliyeed sida aan aaminsanahay dhanka kale waana waajib qof walba saaran in loo istaago. Abuukar Cawaale, waxaad muddooyinkii u dambeeyay kaalin muuqata ka ciyaaraysay sida wacyiga bulshada ee ku aadan difaaca baddeena kor loogu qaadi lahaa. bal waxaad warbixin naga siisaa halka ay marayso dadaaladaasi. arrinta shakhsiyan aniga keligay maaha dhalinyaro badan baa runtii ka qayb qaadatay in bulshada la wacyigeliyo in la tilmaamo badda inaanu leenahay inaanu garteena naqsano dhinaca storyga iyaga inaanu anagu sheego ee aanan soo xigan oo aanan baraheena kusoo qorqorin propagandada ay Kenya faafinayaan. marka arrintaasaan aad u boorinayay war baddiina sheegta aniga leh dhaha af Ingiriis ku qora Talyaani ku dara Carabiga ku qasa Faransiis ku walaaqa adduunka u sheega because Kenya waxa ay sameynayso luqadoodii baa English ah oo ku qoraan waxaasayna bixinayaan. hadda maanta oo isniinta haddii alla idmo haddii ama maantada muuqaalkan haddii la Google garayo ICJ Somali Faces Kenya majority of articles waxa soo baxaya waa English ay Kenyaati ku qoreen. marka waa inaan anaguna dhinaceena shamiitada ka qasanaa oo because adduunka public opinion ka laftigeeda waa lagu tartamaya. informationku waa tools, informationku waa rasaas la isku rido. marka taasaan campaigner ahaan baan arrintaasi u dhalisay aan xirfad u leeyahay Kenya dagaal badan ma isla soo galay. waad mahadsan tahay. saxaafadda Soomaalidu kaalin caynkee ayay ka qaadan karaan baraarujinta bulshada ee ku saabsan arrintan. arrinta saxaafadda runtii door weyn baa looga baahan yahay inay Soomaalida storygooda sheegaan garta Soomaalida inay naqaan gar aragtida aqoonyahanka Soomaalida inay wareystaan laakiin inay soo xigtaan oo ay Kenya storygii Kenya inay iyagu publish gareeyaan waa rasaastoodii baad u ridaysaa adigii baana lugta kaaga dhacaysa istooganaya. marka arrinta aad baan uga soo horjeedaa. ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad halkan u marinaysid cid kasta oo ku daawanaysa mucaarid iyo muxaafid ee ku aadan difaaca baddeena? qodobkaaga u dambeeya oo ah haddii alla ku idmahayo in loo midoobo. waxaan shalay aad ugu diirsaday afhayeenka xisbiga wadani Somaliland oo runtii si gobonnimo leh uga hadlay gartay siyaasad walba oo la isku hayo si walba loo kala fikir duwan yahay
si walbo dadku u kala fikir dheeraadeen haddana waxyaalana mideeya ayaa jira aad baana mudanahaas ugu ammaanaya soomaalida kalena waa ku daydaan leeyahay wax walba oo political dhexdiina dhex yaala ka fogaada aad baan arrintaa u dhiirigelinaya intaas waxaa sii dheer runtii Kenya saad maqasheen maanta waxay laga yaabaa inay sisniinta geyso inay dhahdo kiiskii diyaar uma nihiin maxkamaddii dib ha loo soo dhigo waana khayaano waana farsamo waana xeelad dagaal sharcigiina may jabin codsi unbay geynaysaa laakiin marmarsiiyo hor dhigaysaa la yaabi maayo anigu hadday dhahaan dadkii looyarintiibaa covid-19 ku dhacay la yaabi maayo hadday dhahaan suumku awood badan oo aan kiiskayaga ku soo bandhigano oo aan dadka juuriga ah indhaha ka fiirino ma lihina waxaan rabnaa inaan goobjoog ahaano oo dadku isugu yimaadaan oo garta si fiican loo galo marka suum iyo online ma jirtay inta corona dhinaca u dhacayo hal la sugo inay dhahaan waa dhici kartaa waxay mar walba raadinayaan qodob yar oo sharciga dhexdiisa dalool yar oo sharciga dhexdiisa waana farsamo adduunka oo dhan laga isticmaalo delaying tacticsku waa hab lagu daaliyo ilaa uu ka daalo ilaa ay rasaastu ka dhamaato qofka wax kugu haysta hadba xaggan ka dhig sanad basan because dhinaca kale Soomaaliya waxa ku socda dhigbax dhaqaale oo qaali ah the more uu kiisku sii dheeraadana the more lacag ku socota Kenya taasna kama marna marka laakiin insha Allah biidnillah waxaan ku rajayn weynahay in la guuleysan doono aad iyo aad baad u mahadsantahay Abuukar Cawaale daawadayaal war wixii ku soo kordha kiiska badeena waa idin soo gudbin doonaa waa anigoo ah Fatima Daahir oo idin leh nabadgelyo